بسم الله الرحمن الرحيم. مدحوين كحيينka Jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ambassadorka dalka Taiwan Somaliland u fadhiya ambassador Alam iyo dhammaan shaqaalaha safaaradda Somaliland u fadhida dalka Taiwan iyo shaqaalaha hay'adda Norfolk halkan jooga xarunta waxaan isku soo dhaweynaa xarunta hay'adda Norfolk oo aanu maanta ku gudoomayno madaxweyne ku-xigeenku insha Allah kariim inoo gudoomi doono bariis ay inoo soo dirtay dawladda Taiwan oo ah 10,000 iyo halkiish oo u dhigma 300 tan oo bariisa kaasoo lagu caawin doono hadii Ilaahay yiraahdo dadkeena baahan ee abaaruhu runtii ay saameeyeen sida aynu ka warqabno runtii waxa jira abaaro joogto labadii sanadoodii u dambeeyay xilli roobaadyadooda aad ay u hooseeyeen ama meelaha qaarna aan la helinba taasina ay keentay inay dad fara badan ay saameyso abaartaasi inay saameyso dawladda Somaliland ee hogaaminaya madaxweyne Muuse Biixi iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici runtii xoogga waxay saareen sidii ummadda gargaar loo gaarsiin lahaa oo markaaba ay noqon lahayd dawladdu ta u horeysa iyadoo shacabkeeda iyo ganacsatada kaashanaysa in laga jawaabo marka runtii waxa la qaybiyay raashimo badan baa la qaybiyay oo ilaa 60,000 iyo 496 qoysaba hore loo qaybiyay waxa la qaybiyay 24,710 booyadood oo biyo ah waxa kaloo la kiciyay ceelal aad iyo aad u tiro badan oo 60 ka badan oo gudida heer qaran ee madaxweyne ku-xigeenka hogaaminaya iyo xubnaha golaha wasiirada ah ay runtii hawsha ay qabteen waxa kaloo maantana aan runtii la wareegaynaa bariiskaasi ay dawladda Taiwan manaha markii horeysay runtii in la siiso waxaan rajaynayaa insha Allah kariim inay nooga soo kordhiyaan oo ay raashimo isku dheelitiran oo dadka mar loo wada qaybin karo inay nasiyaan baan insha Allah kariim aanu rajaynaynaa aad iyo aad baa mahadsantihiin the Vice President of Somaliland Honorable Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici Ambassador Alan and other distinguished guests from the Taiwan embassy and other staff came from the Norfolk. And on behalf of the government of Somaliland, the National Drought Committee is appreciating the support and collaboration on development and humanitarian issues between Taiwan and Somaliland government. National Drought Committee is a national body that which is responsible for all disaster management and therefore also is responsible for the overall disaster management in the country, and it is encouraging that Taiwan to continue support on the disaster management areas since the country is located in fragile environment which is susceptible to many frequency hazards. As we know, last 2 years there is continuing droughts in the country. About 1,500,000 people affected this, droughts. So actually, the government of Somaliland, led by Muuse Biixi Abdi and Vice President Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici, they are supporting our community and they are distributing many food and water trucks and other maintaining the boreholes and other. So actually, we are very happy to work with the closing with the Taiwan that support not only for food but they are actually supporting in areas of the health, in areas of the other development areas. So today we would like to appreciate and confirm the receipt of 300 tons of rice, 10,001 and one bag by each 30 kg. So from the government of Taiwan early in 28 August 22, this food donation will help a lot, and we will also like to request from the government of Taiwan diversification of food items, because usually we don't distribute one food item to the needy people. Food diversification is important for both nutritional and cultural wise. Finally, I would like to specifically acknowledge the professionalism shown by the Taiwan government representative office in Hargeisa, who ensured cooperation and positive relation with the government of Somaliland, particularly National Drought Committee and Norfolk. Thank you very much.